الرحمن الرحيم إذا لهانتين بداوض يالكسور دوادا وركي تلفزيون كقرن كجمهورية الصوماليلان وهذا هنو كليات كده هتان شاشة تلفزيون كقرن كا وركنا وحيد للسعود سين دونا أنيقو جمال أحمد ناصرة مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن أحمد محمود سينايو ayaa dhambaal tacsi ah u diray eheladii qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxday marxuumad Cambro Jaamac Cali oo Cali Maarshaal hooyadii ahayd oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo ayaa dhammaal tacsiya u diray qoyskii qaraabadii ehelkii iyo asxaabtii ay ka baxday marxuuma Cambro Jaamac Cali oo ahayd hooyadii dhashay Cali Maarshaal isagana Allah u naxariistay marxuumada oo lagu aasay magaalada Hargeysa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tacsiitaasi lamada u diray madaxaaji Maxamed Guuleed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo waxa uu marxuumada Allah uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii eheladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxdayna uu sameeyay iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wararka kale daawadayaal idii hayno waxa kamida kalfadhiga golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoominayo Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Yuusuf ayaa golaha sharci dejinta ku soo dhaweeyay si uu u sharxo xeerka ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada xeerlaaliyaha guud ee qarankani iyadoo xeerkaasina loo qeybiyay xildhibaanada golaha wakiilada xasan axmed aadan xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa sharaxay xeerkani oo ka kooban 48 qodob ahna mid ciqaabi doona cid kasta oo taageero siisay cid fal argagixiso dalka ka fulinaysa ama iyagu fuliya ciqaab adagna marin doona argagixisada waxaana mid xeerlaaliyuhu u dul istaagay ciqaabaha kala duwan ee la marin doono cidda falal argagixiso dalka ka fulisa isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi qofka ama koox kasta oo geysata waa qodobka 7 ciqaabta falka argagixiso qof ama koox kasta oo geysata fal argagixiso sida lagu qaaxay qodobka 3 ee xeerkan waxa lagu ciqaabayaa dil haddii falkaas ay ka dhalato dil qisaas in loo qisaastay imanaysa xabsi daa'im haddii aanay ka dhalan falkaas natiijada ku xusan xubinta isla qodobkaasi falka argagixiso qaybta labaad ku qalqaaliya fududeeya maalgeliya caawiya in la geysto fal argagixiso waxa lagu ciqaabayaa xabsi u dhaxeeya 5 iyo 10 ilaa 20 sano waxaad ka arki doontaa qodobada 8 qorsheynta iyo diyaargarowga fal argagixiso cidda samaynaysa marka la qabto ciqaabtooda war ururin oo la urursado tababarada iyo waxyaabaha kale ee ay leeyihiin argagixisadu ee dhiirigelinaya in la sameeyo falkaas ama loo socdaba in la sameeyo falka argagixiso qodobka 10aad ku gacansiin iyo ku qalqaalin fal argagixiso isku day fal argagixiso qodobka 11aad 12aad diyaarin iyo siin fal argagixiso raadin iyo in la siiyo taageero koox argagixisa ama in la fuliyo fal argagixiso marka qodobadaasi ilaa aad ka arkayso qodobka 20 waxaad arkaysaa inay yihiin cidda ka qayb qaadanaysa falka argagixiso hoysiintooda habeentooda tababaridooda in la tababaro in hooyo laga sameeyo in xarumo laga sameeyo tababar jamhuuriyadda Soomaaliland ama waxaasoo dhan buu ayuu ciqaabayaa gabagabadiina waxay xildhibaanadu u ballameen in kalfadhiga dambe marka ay soo akhriyaan xeerkani su'aalo laga weydiin doono xeerlaaliyaha guud ee qaranka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay kulan lagu qorfeynayo siyaasadda lamaanaha qaranka sida warkan inoogu eegayo wariye Maxamed Ciise Aadan kulankan ay ka soo qayb galeen shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo agaasimayaasha ay ku leeyihiin gobolada dalka oo dhan iyo hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha lamaanaha ayaa waxa ugu horeynba kulankani ujeedadiisu ay ahayd sidii loogu soo bandhigi lahaa qorshe hawleedka lamaanaha qaranka Soomaaliland ee sanada 2013 ilaa 2017 kulankani lagu falanqeynayo siyaasadda lamaanaha ee qaranka ayaa socon doona muddo 2 cisho waxaana
madashaasi ka hadlay kasoo qaybgalayaashii kulankani oo ka kala socday hay-adaha dawliga kuwa aan dawliga ahayn iyo shaqaalaha wasaaradaha Somaliland waxaana ay dhammaantoodba ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay in qaranku ka lahaado siyaasad cad arrimaha lamaanaha siyaasadda qaranka ee lamaanaha ay u samaysay wasaaraddu may u samaysanin kaligeed maadaama arrimaha socialka ay tahay oo ay iyadu mainstreaming garaynayso genderka lamaanaha waa siyaasadii qaranka wasaaradda waxbarashada way ku leedahay lug wasaaradda kastaaba qayb bay ku leedahay caafimaadku way ku leedahay political participation way ku jiraan nutritionki nafaqadii baa ku jirta nooc waliba uu ku jira siyaasaddaasi qolo waliba ha noqdaan kuwa maxalliga ah ha noqdaan kuwa dawladda qayb waliba qaybtay leedahay inay ku dabaqdo hawleeda oo ay horumariso ayay tahay muhiimadda siyaasaddaas qaranku gabagabadii kulankani waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Garaad waxaanu sheegay in kulankani muddada uu socdo lagu falanqeyn doono siyaasadda qaranka Somaliland ee lamaanaha waxaanu isagoo arrimahaasi ka hadlayay yidhi sida la sheegay waxa uu dhigtay policy ama siyaasad lamaanaha lagu hago adogtiinu dalkeenu wada curduna wada u baahan markaas in wiil iyo gabadhba in xaq la siiyo doorkay ku leeyihiin siyaasadda doorkay ku leeyihiin waxqabadka doorkay ku leeyihiin caafimaadka in wax laga siiyo taas marka waxay imanaysaa inay jirto siyaasad hagaysa lamaanaha inay jirto mas-uuliyiin ka socota dawladda culimo awdiin madax dhaqameed iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay aaska marxuumad Cambaro Jaamac Cali oo ahayd mujaahid cali maarshaal hooyadii oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyootay Allahu naxariistee marxuumad Cambaro Jaamac Nuur oo ahayd Allahu naxariistee mujaahid cali maarshaal hooyadii oo maanta si heer qaran lagu aasay xabaalaha xeeray magaalada Hargeysa. Allahu naxariistee aaska marxuumadda waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin xukuumadda, siyaasiyiin, uqaal iyo marti sharaf kale waxaanay dhammaantood tacsi u direen marxuumad Cambaro Jaamac oo dhashay mujaahid cali maarshaal. haddaba intaasi kadib waxa ka hadlay tacsidaasina mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cambaro Jaamac ilaahay oo naxariisto jannadiina ilaahay geeyo waxaynu ilaahay uga baryeynaa in ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaadii inuu ilaahay samiriye iimaan ka siiyo iyadana janno firdawsa ilaahay geeyo sida la sheegay waa cali maarshaal hooyadii cali maarshaal oo ahaa nin taariikh weyn kula Somaliland isagana waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto janno firdawsa Allah geeyo iyadana waxaan leenahay inagana samiriye iimaan Allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halka waxaanu tacsi uga direynaa eheladii caruurtii kuway dhashay kuway ayada wahaydii kuway macooyada wahaydii kuwa ka tafiirmay iyo ehelka oo dhan marxuumadda aynu halkan aaskeeda joogno Cambaro Jaamac Nuur Yuusuf Guuleed oo ahayd ilaahay naxariistee lagu garanayo marxuumkii cali maarshaal cali Guuleed macali maxamed Guuleed oo isna ka horeeyay oo dhintay ilaahay naxariista jannaha ka waraabay labadooda waxaan leenahay ilaahay dhamaanteen samir iyo iimaan hay naga siiyo ducada ugu weyn waa aynu ugu ducaynaynaa waxa weeye marka aynu ka dhaqaaqno ee loo yimaado in ay ilaahay ku toosiyo in kelmadda sax ah ee tawxiidka ah ilaahay waafajiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wararka naga soo gaaraya wariyahayaga gobolka Gabiley Nimcaan Deeg Ibraahim waxaa kamid ah akademiyada nabadda iyo horumarka Somaliland ayaa maanta dood cilmiyeed ballaaran oo ku saabsan shakhsiyaadka haweenta ee xildhibaanada golaha deegaanka ugu jiray haweenka gobolka Gabiley ay isku dhaxgali lahaayeen ku qabatay hotel qasriga ee ku yaala magaalada Gabiley. munaasabadaas oo goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa ugu horreynba hadalkooda waxa halkaasi ka jeediyay xildhibaan Cibaada Maax Cilmi iyo xildhibaan Nimco Maxamed Cabdi Nimco Bucul oo hadalkooda halkaasi ka jeediyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa horta xildhibaanadii gobolka Gabiley baan nahay
maxay ahayd waxqabadka iyaguna degmadii markaan joogno waxqabad badan oo sidaa aamaanu qabanin anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka bulshada ee deegaanka gobolka Gabiley horta waxaa inagu ma lihin xafiis haweenkeennuna umay baranin inay markay xafiiska yimaadaan ay dumarkii la kulmaan cibaadada sheegtay waxa weeyaan kulli qacmo wada jirba wax ku gooyaan imida markaynu isku xir sameynayno isku xidhanno ayna insha Allah rajaynayno in wax qabad ballaaran gobolkii soo jeedino maadaama anaguna idin ku jirno gulihii deegaanka idinkuna bulshadii kale ee soo dooratay hawshaad noo idmateen inaan wax idin ka qabano si aan dantii ummadda gobolka iyo aynu uga shaqayn lahayneen degmooyinkaba aynu xiriir u sameeyno marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ay loo koobeen ka jeedisay haweeney ka socotay tamarkaasina lagu magacaabo Ifraax Maxamed Galbeedi akademiyada nabad iyo horumarka ayaa tilmaantay ujeedada tababarada noocan oo kale ah cilmi baariska inay ku qaban doonaan guud ahaan gobolada Soomaaliland waxaana hadaladeedii kamid ahaa dhammaan aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad uga soo qayb gashaan kulankan wuxuu ka dhashay sanadkii hore waxaanu sameynay cilmi baaris dhammaan dadka oo dhan ku soo wareegaynay marka kulamaan la yeelanay xildhibaanadii ka soo baxay golaha deegaanka nasiib wanaag idinku waxaa tihiin degmadii labaad ee laba xildhibaan ka soo baxeen waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV-ga qaranka intaasna daawadayaal waxaanu ku soo gabagabaynaynaa war wixii aanu dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aanu idinka haynay warkan iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimaha iyaga dambe ee soo socda warkana waxaa halkan idinka soo jeedinayay anigoo Jamaal Axmed Naasir aniga iyo waliba bahweyntiga la qayb qaadatay soo diyaarinta warka sawirida warka waxaanu idinku dhaafaynaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh